kelmadda shahiid walaalayaal marnaba ma soo gasho, marnaba laguma sheegi karo qof dhintay oo jihaad ku dhintay. haddii lagu magacaabo taalada shuhadada waa kuwa nool ee dagaalka, kii Faysal bootaan qabtay iyo qoladaasay noqonaysaa shuhadadu. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها الهيري واتاي داوديال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان يلا سوتان ولو تلفزيون كاستي انا ودكيه ماني magaalada ka mid taanaha Simonia Minneapolis gobolka Minnesota. داوديال sideen hore u soconayba barnaamijyadeena taxanaha inoo ahaa oo aan uga jawaabaynay beenta iyo qaladaadka wadaadadu ay dadka ku wadaan ayaanu hayaadana mar labaad dib ugu soo noqonay inaanu hadda mar labaad ku noqono kadib markii nala soo weydiiyay kelmadda shahiid dad badan oo taageerayaal ah oo fahmay arintii ay nala soo xiriireen dacawaale ee ku soo dhawow mar labaad baan ku celinaynaa waxyaabo badan oo aan soo weydiiyay mar haddana ugu dareynaa ayada kale in cabsitaan horta aad baad u mahadsan tahay. run ahaantii waxay caddaynaysaa dadka Soomaalidu inay yihiin dad aanan run ahaantii wax baadhin. waxaanu soo bandhignay waxay ahayd cilmi, waxaanu soo bandhignay aayado qur'aan ah oo cadcad ayaanu soo bandhignay oo kitaabka Ilaahay ee Quraanka ku yaala. waxa nasiib darro ah in ay dadkaas iyagoo aanan waxba baadhin in ay qaarkood ay si xun uga farceliyeen oo ay xitaa inagayna aflagaadeynayeen. waxaan soo bandhignay wuxuu ahaa aayado qur'aan oo cadcad oo sheegaya kelmadda shahiid inayna marnaba qof dhintay oo dagaal lagu dilay ayna ahayn. qof wax soo baaray ma jiro, may keenin wax kale oo daliil ah. qaarkood waxyaabaha aad la yaabaysa waxaa ka mid ah qof innaga oo kale ah oo keenay kitaabkii qur-aankii aayado Ilaahay uu soo dejiyo cadcad in qaarkood ay keenaan hadallo qof qoray oo buug ku qoran oo buugta Bukhaari ku qoran oo sheekooyin iyo riwaayado hebel iyo hebel iyo hebel laga wariyay in waxaas noocaas oo kale ah la barbarigo. ma moodaynba dadku inay aaminsan yihiin kitaabkii Ilaahay intay ka tageen Bukhaari uu noqday kitaab barakaysan. anigu run ahaantii maan moodaynin. kelmadda shahiid walaalayaal marnaba ma soo gasho, marnaba laguma sheegi karo qof dhintay oo jihaad ku dhintay. qofka jihaad ku dhintay waxa loo yaqaanaa qof jidka Ilaahay ku dhintay, kaas baa loo yaqaanaa. marka shahiid waa markhaati, waa goob jooge, waa labadaas. sida aan ognahay waxa weeye dadka mar walba hadda aan arkayno mar walba ama ina soo weeraraya maslada cawaalow culumadii iyo dadkii shacabka ahaa waxa u dhaxeeya isbaarooyin. dadkiiba culumadiiba isma arkayaan, khaladkoodina lama wasixi karo culumadii. waa dad horta aqli ahaan iyo maskax ahaan addoomo u ah wadaadada beedgaabka ah ee ganacsatada ee diinta ka ganacsanaya. waxa la yaab leh qaarkood laba aayadood ayay keeneen oo aayad ay in yar kasoo goosteen oo ah waliyattakhidha minkum shuhadaa, oo ay malaha ka wadaan in kelmaddaasi looga jeedo dad shuhadaa oo yacni dadka dagaalada ku shahiiday. waxaan soo xasuustay aayadda oranaysa oo ku jirta suuratul maacuun صح oranaysa ويل للمصلين مع صلاه مساهون. صح intaasay soo goosay inta hore intaasina waxay ka hadlaysaa markii la bilaabay aayadda bilowgeeda hore nimanka ujeedadii bay oo socod, laakiin intaasay marba intay in soo goostaan ayay intaa ku dabaqayaan iyagu waxay rabaan. bal hadda aayadda inteeda hore ayaynu eegaynaa. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. هذا صار كاليسا in aayadaas ma dad dhintay bay sheegaysaa. wuxuu yidhi taas waa maalmo aan dadka ku dhex wareejinay
أن مالمها أن تدك كده حوريتشنو وليعلم الله الذين آمنوا سوء إلهي أموتشيو كوينا إلهي رميي ويتخذ منكم شهداء وقارد كمدنا وكيلو مرخاتيو مرخاتي بك هذا لكن مركي سو غوستان انت وسكليه حتى هدي اي سو غوستان ويتخذ منكم الشهداء ما هو مقارك اذا كمد او كدغو لمشي كليه دمشق ميلنا كما سو غليس يدل waxa weeye kuwa mar walba dhinta صح yaa soo arkay oo markhaanti ah way shuhada waxa kuwa soo arkay ama waa markhaati ha okay ayad kale oo waxay soo qaateen وإلهي يدي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء وهي marka aayadaas oo kale la arko dadka loo gudbiyo Soomaaliya inay ku qancaan aayadaha Quraanka ee aysan qaadan wax la soo sheegay ama qiso loo soo sheegay oo YouTuber ama lacag dadku khuraafaadka aaminsan in aayadan waxa weeye waman yudci Ilaaha wa rasuulahu qofka Ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca fa ulaayika kuwaasi waxay kamid yihiin maca alladina an'ama Allahu calayhim kuwa Ilaahay u nimceeyay ee kamida min nabiyinta kamida wasidiiqiina kuwa runta sheega kamida والشهداء يا مرخاتيدين كمدا والصالحين يكو وناكسن وحسن أولئك رفيقا هو وحلا رفيقه ولا درس نقطة أما ميل لا جوكسده كواسا وهو وناكسن أيو إلهي صديقين مركا النبي دي يو محوها رنشيغياشي يو مرخاتيدي يو صالحين تي أيا هالكنا مركا قف بنتي مياشني كومتشر دمشق كومتشرتو ومرخانتوي مركا آيادو فربضان aayado fara badan ayaa muujinaya marnaba meesha kuma jirto luqad ahaanna uguma jirto in kitaabka quraanka ilaahayna kuma jirto waatan bal haddaan eegno waxa uu ilaahay yiri suuratu an-nisaa laakin allaha yashhadu bima ansala ilayka ansalahu bi'ilmihi wal malaa'ikatu yashhadun wa kafaa billahi shahiida billahi wuxuu yiri hase yeeshee ilaahay waxa uu qirayaa in uu kitaabka uu kugu soo dejiyay cilmigiisa iyo ogaashihiisa wal malaa'ikatu yashhadun malaa'ikatuna way qirayaan oo marxaati bay ka yihiin wa kafaa billahi shahiida laakiin ilaahay ayaa kuugu filan marxaati halkan ilaahay baa shahiid lagu sheegaya marka ilaahay subhanahu wa ta'ala ma shahiid baayo ma dagaal buu ku dhintay awal marka waxa way halka waxa ka cad waxa way watii quraanka lagu sheegay quraanan carabiyan la'allakum taqulun صح قرآن هو اللغة العربية هذا العربي اللي برن أو اللغة العربية اللي برن سعقلي لسوا في الجنة يو عقلي ولا جماش قيني لا جماش قيسيني عقلي لو ترى قال ليش قيسي لو فهم القرآن هو عقول أفلا تعقلون فلا تعقلون أنت ولا الشر وحول البوح الربا عقلي لا جماش قيسين لها وح لجو كوبي إن لجو أخرية أو لجو سو جدبيو خرافات كيشيكوين كأو بخاري قري إن لجو سو جدبيو قرآن كله وح لو بهي إن قواعديا أما قرآن هان حرفيه سيدا مدل بمشي كل جد سنتين سكان رأسن تاعي إن الله كانوا ريبين قيم الصوب وصل كلمتي حتى عام بين نقطة واحد أركي تعالى ذا الشهادة تصالحان تعالى ذا الشهادة وحتى لا عناد كتعالى وكل بنتي بوقبان يدقالك اللي قد لي كوا ما تعالى ذا الشهادة وحين نقول سوا وحين وضع كوي دقالك كقيب قال نو كوا الجوجة إن الله سميه قال لي هذا أبحيان قلصيدا أيها نقولية شهادة نقولية إيجا مرخاتيا مركا شهادة تعالى ذا سوكله هدي لقوم مقعابة تعالى ذا الشهادة وقوة النول دقالك كيف يصل بوتان قبتي إيو كيف بس والله ذا نقولية شهادة شهادة نقولية أي نقولية قلصين تقولن باش النول حتى كشيكين كرد دقالك نكاسة شهيدة وشهادة كترسن واتن آيات وكذلك جعلناكم إلى هاي سوى الله الله يا أمة النبي محمد وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أيها الهيري ذلك مرخانتي إن أقول قصان كل قصان سيدا درتين أيها أمة النبي محمد أن إذن كدقنا أمة دحاذا سياد شهداء ونقطين أو ضدك عن مرخاتي ونقطين وأن نقطين ضدك كو مرخاتي كعا لتكونوا شهداء ما هكوا دقال كدنتي
maaha kuwa dagaal ku شهيد dhintay كلمة اللي عوالة وطن مالو ذا شيء ha قفك وينو يها عليم وينو يها سميع بصير waa qof meeshii goob joogay قوب جوجر أما حنا مغني مركي waa قاعد kan عايش قفل اللي بني ha litakunuu shuhadaa waa markhaatiyo iyo goob joogo ama markhaatiyo ka noqotiin wayakuuna rasuulu calaykum shahiida rasuulkuna uu idinku markhaati يكون furo. مرخان فريو Ma إلا garat? ما أنت halka labadii kelmadood shuhadadii oo jamaca waa markhaati. شهيدا ونقول shahiid oo rasuulkiina rasuulku ma dagaal buu ku dhintay waay مركا أول ولا وحلي مرخان تود كل نقول markhaati baa aad ku noqonaysa wakadalika jacalnaakum ummatan wasadan litakunuu shuhadaa شهداء si aad u noqot ummadda aad ummadaha kale saad markhaati ugu markhaati kacdin oo markhaati ugu إن noqotid دينت نسود idinkana uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu markhaatiyaday ku noqon كل نقول marka shuhadada iyo shahiidkii jamac iyo mufradkii waa tan aayadana soo كلمة koobsatay إيمان هذا إيه مركي تحي intaa kuma qancayaan kuma qaracayaan waxay u dooda ku doodayaan Ha. waxa weeye oo ay rabaan nin u soo goostay in yar Ha. yar oo aan u sheegin waxba u sheegin oo dhimasho u Aad iyo sheegay waan kusii soconaynaa dee aayadu Aayadu- way tirabeeleen ayada ku xigta fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida buu ilahay bal ka waran haddii aan nebi maxamed baa lala hadlay alayhi salatu wasalaam haddii aanu ummad kastiba aanu ka soo saarno mid ku markhaati kaca oo shahiid ah waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida aan adigana kuwan kaaga dhigno mid ku markhaati kaca arrintan ay aayadahan waxaan usoo qaadanaynaa usoo bandhigaynaa waxay tahay inaan bere kugu markhaanti furno intaad dhegaysato sax inaad shahiid ka dhigto Ha. qof la dilay ama qof dhintay Mhm. ee aadan maqal aayadahan qur-aanka Sax. qofka annaga isku dayaya inuu nacaayo ama naafagadeeyana annaga nooma socday wuxuu ujeedaa anagu aayadahan fasiraynaa qur-aankaad wax ka sheegaysaa Ha. anagu waa nin waxaan- qur-aanka diiday oo ilaahay diiday Ha. oo bukhaari ilaahay iyo nebi ka dhigtay weeye anagu waxaan qur-aan ahayn kumaanan sheegin marka waxaasoo aayadood baanu keennay marka bal haatu burhaanakum bal keena daliilkiina Had- oo aan ka ahayn hebel baa laga wariyey riwaayad kale waxay tahay hebel baa laga wariyey kitaab uu qoray oo sheekooyin iyo khuraafaad ah oo bukhaari uu qoray oo saxiix lagu haddaad tilmaamay haysaan saan oo kale aayado Bal keena. macnaynaya inay wax dil tahay ha keena Keena. oo soo fariista soo fadhiista idinka waxba jarjarin idinka waxba samayn jarjar oo keena bal aayado keena aayad jarjar qur-aanka ku jirta oo shahiid sheegaysa in lagu dilay hebel ha oo in idin tahay. nin dagaal lagu dilo uu yahay keena shahiidku waa qalas ha waa nin dagaalamay oo waa soo ninka arkay nool nin tusaalaha dhintay. nool waxa weeye Ah. haddii aynu ka waramayno dagaalkii matalan somaliland iyo ka dhacay shahiid waxaa shahiid noqonaya waxaa qofka dagaalkaasi galay ee hadda nool taalada shuhadada ee ka dhisan lagu magacaabay laascanood badkay ku taalla waa qalad haddii loogu talagalay dadkii dagaalka ku dhintay maaha waa kuwa nool ee dagaalka ka qayb galay ee hadda ka sheekayn kara ka dagaalka galay ee hadda ka sheekayn kara baa shahiida waa tahay cawaale aad baan kaaga mahad celinayaa barnaamijkeena intaasaan kusoo gabagabanaynaa intaan dib u kulmi doonno waa anigu cabdisaar axmeda iyo cawaale dayr oo idiin soo diyaarinay barnaamijkan inta aan ka kulmi doonno iyo barnaamijyo kale oo noocan ah iyo waxyaabo badan oo aan idiin hayno iyo qaladaad badan oo aan sixi doonno waxaan idinkaga tegaynaa intaas iyo nabadgelyo aad iyo aad baad mahadsantihiin